وعن ونكسن ما أنت وحنا سوق هذا برنامج جارة أو نوجو مقدرني سعودال كميجا وحن ما أنت كسوق هذا سعودال كميجا عيار رقمات لقى عيار NFD حتى تكون نوشة هاي وقوي بري ألتقى سومالي NFD أما وقوي بري كينيا حتى سومالي كنا نوشة أنا سومالي قلبت عيار تصار كوا عيار رقمات سوجرينا ولا عياره وامو واسو يجدو عيار تصار كا وحال عيار حلية وقارة أنت بدن وعيار لها صاوتجو أنت بدن وعيار دبلدقة أما مالمها فرحة لعياره هذا ما أنت دنا سوق هذا عيار صاركو وحا قاعدة قبلها أو كله قياسا رجونا كان يعرب أي كجاقب قاتان أو واتنتان أما واد إيلان دوان أيان مقالك أداون دونتان وحنكو تجي ميجا أنا جو مركز الله كل ماي مال أروس كجرو مناسبات أروس جرتو قلب كنا لديلايا صارك أنتي سبدان وحال عيار قلبيه مركو أروس جرو وحاصل عيار مركو حاساوا يا باشا الإسكية هاي هبينك حلقة دمبه واتي قبضوا لهد لباح ليل بودعاه لا مي ليل بودلاه أفكو ليدا ودواه لقنتو اللحياه أنا الليل كان عياه وقبضي صارك قادسي وحي كروتره سيدي رحنتي مرودي راعنا رمي راعنا دالي راعنا دبر روكسنس سيدي دان وحو الرشان رفيق يرحي المرمي أيضا مركز صومالي المدو لو انتهي oo Soomaalidu awood ay leeyahay tilmaamayso waa waqooyi bari Kenya ama NFD gaar ahaan waxay kaloo tiri sida qaaluu sici qulqul ay qoobka isla dhacay dareemada soo qacdabi ee guusoo yahay qariib weylaha ay qabac dhahaan ameelada lala qamaam martida lagu qaacinayo yaa markuu waa dad aftahaniin ah waa dad waxay kaloo leedahay markii saararkii hore iyo gabdhihii iyo taariikhaha waxaan ka maqalnaa dadku ay noo sheegeen ama aan ururinay kamid ahaa inay gabdhuhu fariin ku gudbin jireen ay leedahay maxaa la dhihi jiray bidaan geel loo ma raaco bidaan wiil loo ma raaco bidaan gabar loo ma raaco ay lahayd waa kay lahayd bidaan wiil loo ma raaco bidaan wiil waxa u badan mid baar leeg oo bayadan bishaar magaciisa yahay balaayada markay timaado geedaha baarkooda male bilaawaha baraqda dhigi bilaash noqda ka buux waa kay lahayd bidaan geel loo ma raaco bidaan geel waxa u badan hal baar leeg oo bayadan burbur iyo baanyo cunay cagta ay tahay baruur eegi buro loola kaco bilaalibin garow ka dhigi bilooda geel u badan bidaan gabar loo ma raaco bidaan gabar waxa u badan mid baar leeg oo bayadan bishoy magaceeda yahay bilicdeeda la daawanayo eegi buulkii aroos la geeyo badkay lahayd bakeeri aan xalani karin bilaash noqota basari ah naag u badan markuu waxay ahayd qaab maanseed dhameystiran waxay kaloo sameyn jirtay inay gubaabin jirtay ragu kolaad boodada bargoysa bilaawaha dhiigu yeel ay leedahay waxa halkan ka arki doontaa muuqaalkan wiil ku fororsaday saarka uu ku fororsanay wiilka wuxuu dareemay in halka looga badan yahay ama saaxiibadii ay joogin marka laga guusho ama laga cishada saarka wuxuu sameynaa ugu burura ama gabadha luuqdeedii ereyadeeda uu jeclaado jilibka ayuu dhiganayaa ama uu fororsanaya haddii la diido gabdhaha waxaad arki doontaan way saarayaan sacabka ayay ku boobayaan si ay u qanciyaan haddii lacal uu inta waayo waxa dhacaysa inuu ableydiisa ama tooridiisa ama astiisa la baxo oo uu dhiig iska keena ama uu isgooyo asoo markaa naftiisa ku qancinayo oo wax dhaqana oo soo jiray
waxaad kaloo muuqaalka ku arki doontaan inkasta oo gabdhaha xilliyadan dambe la fahmi karin waxa ay ku luuqeynayaan iyo waxa ay sheegayaan inay gabdhaha sidaan ii sheegay ereyada maanseedkaas ay soo qaadan jireen waxaa la dafiri karin marka oo hubaal ah heesuhu la qaado inay Soomaalidu ku cusbaneen oo kontameeyadii 1900 ilaa 47 wixii ka dambeeyay ay soo kordheen qaabkan heesaha la xameynta ee rag iyo dumarka ay qaadayaan marka waxaan sameeynay baaritaan dheer saarku wuxuu soo jiray muddo 100 sano ka badan inta hadda taariikh lagu hayo markaad shaqalada fiiriso erey maanseedka ama miisaanka maansada shaqaladu uu ka sameeysan yahay heesku waxa u badan 9 ayaa u badan laakiin waxa cajiib ah heesaha ugu caansan Soomaalida ee la dhageystay fanaaniinta waa bari hobladu waa bari qaadi jireen iyo gabadhan heesayso ee miyiga ka heesayso marka isku dheeli tirto inay isku shaqal yihiin inay isku dheeli tiran tahay oo maansadaas ay dheeli tiran tahay marka waxaan waa wax hal abuur oo wax jiray waa wax soo jireen ah oo waxa la dafiri karin waxa kale oo muuqaalkan aad ka arki doontaan reerku xilliga barwaaqada la joogo inay xooluhu soo insaaraxaan ama weylaha ama maqasha ay ka hortagaan waxaad arki doontaa laxa 100 ka badan oo ka hortagayaan 100 naylood oo ayagu dhaleen laakiin lax walba ayna seegeenin neel walba ayna seegeenin laxda dhashay ayadoo laxdana marka dabada ka ursanayso oo ogaanaysa canuga inay kaadi tahay oo diideenin oo ka dhaqaaqeenin waxaad arki doontaa ratiga reerku ku guuro xilliyada galabkii in lagu dabro meel reerku ka dheereen asagoo marka boodka ama reerka falanfooligiisa daaqayo yaad arki doontaa waxaad kale arki doontaa sac weyrax ah oo markaan weeshi ama edagii meeshii weyluhu ku jireen aan fiiriyay aan damcay inaan kamerada ka duubo igu soo dhaqaaqay aad ba u mahadsantiin muuqaalo kale oo faahfaahin dheer waa arki doontaan waxaan ku soo koobayaa barnaamijka maanta gaarka aan ku eegi doono ciyaaraha intaas aan ku soo koobayaa sida idin sheegay waxaan noo dhiman ciyaarta diisowga waxaan noo dhiman ciyaarta waaleyda waxaan noo dhiman ciyaarta looloolka waxaan noo dhiman ama adaloolka sibasa u taqaanaan waa walaalkiin Cabdirasaaq Ibrahim Xuseen Cabdirasaaq ka baxay oo idin leh please subscribe YouTube channel-ka Abwaan Cabdirasaaq ka baxay please subscribe YouTube channel-ka Garissa channel aad buu u mahadsan yahay dhanka farsamada waxa iga caawinaya freelancer Cabdi Farax Shire aad baa idinku mahadcelinaa barnaamij dambe oo xiiso leh